السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسروا القلي ديزاين سامر والبكالة سعطان علمي كمبيوتر كي برنامج الملتي ميديا. haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe garee gambalaalkana furo. Cashirkan wuxuu ku saabsan yahay sidee sawirka photoshopka markaad soo gelisid aad editing aad ugu samayn kartaa. Ayaan kula wadaagi doonaa hadduu aladma sida loo jarjaro. Okay, sawirada editing aan ku samayn doona ayaan soo gashanaynaa. Hadda tusaalahan dhowr sawir ayaa meeshan igu diyaarsan. Mid ka mid ah ayaan dooranaa tusaalahan kan. Kadibna background kale ayaan geynaa oo markaasi ku soo baxayo. haddii lacala meeshan ay qofka ka xiran tahay fur si oo aad isticmaashid oo transparent kugu sameeyo. Calaamadan waxaa isticmaalana bonal toolka waa jarjarista inta badan loo isticmaalaa. Click ku si meel ka bilaab qaybta kale u geey. Hawjeeda inaad saas ul raadiyaa muhiim ah. haddii kale hadaa qalad backspace ayaa leedahay keyboardkaada backspace. Click ku si hal rabaa sida uu yahay qofkan shaatigiisa hadduu qaloocan yahay inaad qaloocanatid, hadduu toosan yahay inaad toosisid ayaa muhiim ah mar walba. saas markaa sidaas u sameysid oo qayb walba asaas aad raacdid waxaad awood ku yeelan doontaa sawiro badan inaad sidaas camal u jarjartid aad ku bixisid. Hajeedin next waxyaabo qaarkood iska hagaaji kartaa sida timihiisa. sidaas markaas waxaa samayn kartaa meesha ka bilaawdid ayaa ku keenaysaa. kadibna control x ayaad leedahay saa u jartid waad jartay qaybtan qayb ka mid ah. haddana qaybtan ayaa noo dhiman saas la raacaysaa. haddaa qaladid backspace riix keyboardkaada saa u laabatid meesha aad dooratay oo aad jarrabtay inaad qaladay. saas markaa sidaas u sameysid waxaan samayn doonaa insha Allah background-iga ayaan ka bedeleynaa oo background asiga ku soo baxay ayaan samayn doonaa insha Allah. sidaas digital raac sida ay tahay. haddii qaloocan tahay qalooci, haddii toosan tahay ina toosi. meesha ka bilaad u keen kadibna click ku si control x aan leedahay. hadda sawirkan waxaad u jeedaa geesaha wax ka muuqdo laakiin sidaas oo samayn kartaa. laakiin background sida u gali kartaa control o ayaa leenahay. background kana ka dhigaynaa background isaan noo soo furay. move tool ayaa isticmaalaysaa qaybta ka hore move tool. kadibna dragging ku sameynay qaybtan kale calaamadda inay saas u bedesho. kadib background markaa geysid calaamadda plus isku bedelaysaa kadibna waa deynay. sawirkan wuu yaryahay control t ayaa leedahay calaamadan click ku siinaysaa perspective kadibna waa jiideynaa. hadda sawirkan in la soo jiro waa laga dareemaa. waxaan sawirkan in laga dareemo marow. sawirkii hore ayaan ku laabanaa kadibna waxaan doonaa calaamadan wareega oo la dhahay marquee tool. kadibna opacity-ga faderka waxaan ka dhigaynaa 50 kadibna waa select gareynaynaa intaan rabno. kadibna control c ayaan dhahnay qaybta kale ayaan geenaynaa oo shape aan ku soo bandhigaynaa background-iga. kadibna waa jiidi kartaa soo samayn kartaa. move tool isticmaal sawirkan isku barbar dhig samay. sawirkan inaad soo jirto laga dareemaa. sawirkan qaybtiisa wuxuu loo maleynaa inuu ku dhex dhisan yahay malmay meeshan qaybta hoose. sawirkii waa soo jarjarnay qayb opacity-gaan soo yareynay qaybna caadi ayaan u keenay. waxaan rabnaa sawirkan waa iska delete kartaa ama waa iska xiri kartaa. sida u xiri kartaa calaamadaas isha ayaad jeeg ka qaadaysaa kadibna automatically wuu qarsamaa. sida aad save gareyn kartaa file ayaa leedahay kadibna save as ayaa leedahay kadibna desktop-ka ayaa dooranaysaa magac ayaad u bixinaysaa magaca adiga ku xiran tahay. kadibna meeshan fur formatka photoshop ahaan marka walba waad ka bedel kartaa wax walba ku diri kartaa. hadda waxaan u baahanahay inaan ka dhigno jpg kadibna magaca uu inoo save gareysan yahay kadibna save ayaan leenahay kadibna meeshan calaamadan ayaan badinaynaa ama meeshan 12 ayaan ka dhigaynaa kadibna okay ayaan leenahay. sawirkii sidaas uu inoo save gareynaa desktop-ka. waa kana sawirka magaca ugu dambeeya aan ku qoranay waa ujeedin intaas uu kugu soo bandhigay. kusoo gudbinayna haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay ugu faa'iideystaan adigana aad ka mid noqotid mar walba daawadaha ugu horeeya
ee daawada fiidiyowyada aan idin soo gudbino.